soo qayb galay carwada ganacsiga iyo caafimaadka Soomaaliyeed sanadka 2025 oo ugu horeeyaan wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya wasiir ku-xigeenada xildhibaanada gudoomiyaha carwada Mr. Ridwan agaasimayaasha isbitaalada iyo shirkadaha sida gaarka loo leeyahay waxaan rabaa qof walba inaan ku salaamo magaciisa iyo mansabka meeshaan uu ku fadhiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii sharaf ay noo tahay in aan sanadka saddexaad ka soo qayb galno carwada ganacsiga iyo caafimaadka Soomaaliyeed. sanadkana aan ka mid nahay taabageliyaasha ama sponsorska. runtina sababta aan uga mid nahay sponsorska sidoo kalena aan uga mid nahay ka soo qaybgalayaasha oo servicekeena aan shirkadaha kale iyo isbitaalada kale si la mid ah ugu soo bandhigayno meeshaan waxaa waaye in munaasabadda maanta meeshaan ka dhacaysay muuqaalkan uu noqdo midka Soomaaliya matalaya oo aan rabno bulshada dalka gudihiisa ku nool iyo mid kuwa banaanka ku nool dhammaantood in maaragtay ay arkaan. sidoo kale runtii in hal munaasabad ama hal carwo ay iskugu yimaadaan ganacsiga iyo caafimaadka oo ah laba tiir oo asaas u ah horumarka bulshada caafimaadkeeda iyo dhaqaalaheedaba ayadana waa munaasabad weyn oo maaragtay awoodii waddanka caafimaadka iyo ganacsiga hal meel intay ku kulmaan la arki karo caqabadaha jiro sidoo kalena fursadihii inta la wadaago la abuuri karo jaranjarooyin cusub ama bridges cusub oo loogu gudbo caqabadaha taagan mustaqbal fiicanna maaragtay loogu gudbo. isbitaalka takhasuska Soomaali Suudaneys runtii sida bulsho badan ay ka warqabto wuxuu lafdhabar u yahay adeeg bixinta waddanka gudihiisa bulshada ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed oo fara badan ayaan waxay uga maarmeen 10 sano isbitaalku uu shaqeynayay in ay maaragtay u safraan dibadda si u raadsadaan adeeg caafimaad oo horumarsan. alxamdulillah rabbil caalamiin 10 sano isbitaalka shaqeynaya runtii waxaa hirgashay in waddanka gudihiisa adeeg dhammaystiran oo tayadiisu ay sareyso bulshada Soomaaliyeed ay maaragtay gudaha ku helaan. waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo wasaaradda caafimaadka khaasatan wasiir ku-xigeenka oo nala fadhiyo sharafeena noo ahayd sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan sanadka 2024 iyo 2025 labadaba inaan wada fulinay wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka iyo hay'adaha Qadar Charity iyo Qadar Red Crescent labo mashruuc waaweyn oo carruurta Soomaaliyeed wadnaha daloolo ku dhasho waddanka gudihiisa loogu sameeyay qaliimo oo maaragtay in ka badan 100 carruur ay ka faa'iideysteen qaliimadaasna marka hore waddanka available aysan ka ahayn wasaaraduna waa ugu mahad celinaynaa maaragtay fursadaas ee waddanka gudihiisa ku abuurayso waana dhiirigelinaynaa dhammaan ganacsatada iyo isbitaalada iyo shirkadaha kale ee ka soo qayb galay maanta munaasabadan waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.